بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي صوت هذا مقعيقة وعبد العزيز عبد الله عثمان إنجنير وحربة إن هالكان كوسو قد إن شاء الله إن كورس كسابسا reinforcement concrete design وإن شاء الله الرجينا يو element يديس نوعية كلا دوان أيقو design قريسا إن هالكان كوسو قد بيو يدو باي أونلاين هنقطه في يوتيوب كا أما فيسبوك إن شاء الله فيسبوك بيج كا lecture-ka koowaadna wuxuu iska noqon doonaa mid iska introduction ah si lamid engineering waxaan rabaa code-ka aan ku base garin doono waxa uu noqon doonaa PS-ka oo isaga inta badan Afrikadan iyo meelaha kale laga isticmaalo insha Allah engineering okay structural elements-ka aan ku design gareynayno marka intuu socdo course-kan waxa kamid ah slab-ka kamid ah nooc kala duwan uu leeyahay beam-ka oo isagana ma aragtay continuous simple support waxyaalahaas kala baxa column-ka oo circular iyo rectangular ma aragtay noocyadaas uu leeyahay oo asagana design gareynayno insha Allah marka engineering footing yani nooc kala duwan uu leeyahay footing engineer sida mat footing-ka combined footing isolated-ka waxaas oo dhan design gareynayna staircase oo iyadana intaas oo qayb u kala baxda ha noqoto L shape iyo ama U shape ما فهمت engineer okay structural elements ko dhan iyadoo ma aragtay aan gadaal ugu soo dari doono water tank-ya iyo si lamid ah basement isko kale waxyaalahaas inaan ku design gareyno insha Allah okay components uu ka kooban yahay reinforcement concrete-ka iyada wax iska simple ah waa concrete iyo reinforcement concrete-kana marka fiirisid waa cement aggregate iyo water intaas waa kasii soconaynaa marka RCC design engineering waa mid stronger si lamid ah waa durable long time jiri karta engineering yani waqti qaadanaysa inay burburto kale si lamid waa flexible way hadii dhibaato ku imaado salaano kale cracking hadoo imaado waa la xalin karaa repairna lagu sameyn karaa waa la daaweyn karaa engineering ma fahant waa mid hadii salaano kale inta badan waa la arkaa marka waxa soo dhan waa laga hortagi karaa oo dib waa loo repair gareey karaa engineering properties-ka leedahay reinforcement concrete-ka waxaan u kala qaadanaa concrete iyo steel-ka steel-ka waxyaalaha qaar iyada guudi ku tahay waxyaalaha qaarna waa ku wanaagsan sida table-ka kaaga muuqda tensile strength-ga markaa fiirisid concrete wuxuu ku tahay buur laakiin steel-ka guudi ku tahay engineering compressive strength-ga concrete-ka ku wanaagsan durability-ga waxa ku wanaagsan concrete iyada guudi ku tahay waqti jiri karta time qaadan karta engineering laakiin steel-ka markaa joogtid waxa dhici kara inay daxlaysato hadii aan loo sameeyo cover fiican hadii loo sameeyo salaana kale waxa saameyn kara daweysha saameynaya waxyaalahaas oo dhan marka waa saameyn kara fire resistance-gana concrete-ka ku wanaagsan laakiin steel-ka way u nugushahay debka engineering engineer marka design reinforcement concrete elements-ka marka la fiirinayo engineering waxyaalaha oo xoog la saari doono wax kamid ah inay waxa design gareys inay safe yihiin number 1 priority ku wada siin doono waa taas waxa design gareys inay safe yihiin si lamida economical mid macquul qaadan kar la aqbali kar ma tahay engineering waxa sidoo kale meesha yaalo theoretical placing mid qurux badan soo jiidasho leh macquul ah engineering inay yihiin waxa sheegay inay safe yihiin number 1 number 2 economical hadii la fiiriyo economical purpose-na macquul ma tahay ma la dhisi karaa macna theoretical ma rabo engineering fahant okay marka reference-geedana waxa uu inoo noqon doonaa structural element Janaki third edition ayuu inoo noqon doonaa magazine book islamida BS code-ka practical structural use of concrete oo isaga ma aragtay intaasoo particle 1 2 3 ayuu leeyahay insha Allah marka waxa soo dhan waxay noqon doonaa reference-yada aan halkan ku isticmaal doono insha Allah finally lecture-ka xiga waxa inuu noqon doonaa example design two-way solution insha Allah waa design gareynayna waa detail gareynayna engineering element walba marka dhameynana waxa rajeynaya insha Allah ina detailing-kiisa aan soo raacsin insha Allah thank you هذا ما